waxaad dareemayaa in maamulka ka jira magaalada Beledweyne ay xarig ba'an u geystaan dadweynaha magaalada taasoo aanan maaragtaa haddii sal iyo raad la raadiyana aanan wax sharciyada ku fadhin dadkuna ay ayagana maaragtaa banaanbaxyo badan oo shucuurtooda ay ku muujinayaan ay dhigaan wuxuu marka haddii ay sax yihiin iyo haddii qalad yihiinbo in miiska wada hadalka la isugu yimaado arrintana maaragtaa aan yacni la yaraysan oo aan la fududaysan ayay ku wanaagsan tahay nasiib darro inkastoo madaxweynihii iyo baarlamaankii iyo dowladdii muqdisho dhan xilkooda uu ka dhamaaday haddana waxaan leenahay mar kastaba ayagaa noo madax ah in arrintan ka jirto hiiraan gaar ahaan Beledweyne la xalliyo lagu xalliyo cid walba wixii ka maqan Soomaaliya waxay ku qaybsataa 4.5 ama 4.5 wanaag lagu raadiyo wada hadal lagu raadiyo oo aan lagu raadin bini'aadanka wax nafsadooda khatar gelin karo ama wax u dhimi karo marka annagana insha Allah waxaan sameeynaynaa oo dadaal badan juhud ku bixinaynaa inaan isku keenno cid allaalo iyo cidii wax tabanayso bulshada qaybaheeda kala duwan annagoo matalayno oo bulshada rayidka ah ee reer Hiiraan insha Allah